عالم تي في فرنسا ودك تلاني مقالة فرنسا ورك جروك شاك ما تاخذ قدنا بشيء تاي سيدي طبعا بشي طبعا لواتن شن ورك جروك شاك ما أنت وحربا أنا كسوقاته مدحوين حسن الشيخ وحو قرعوا يا البابكي دقالك أو نوجين وحو صبح دونه مدحوين وحن كل شيء البابكاس أقرعي سيد ما وناك سنة marka waxaan ku dhihi lahaa albaabkaas hadaa garaacaysid albaab nabadeed garaac waxa ka soo baxay waa la ogyahay haddii aad dadkaad horey asxaabta u aheedeen oo shalay aad isla aheedeen mucaarad oo ku yaqaana waxaa tahay aad taqaanid waxay ay yihiin waxaad ka murmi jirteen iyo waxaad ka hadli jirteen aad og tahay ha u babac dhigin inaad ka hortimaadid madaxweyne waxaan ku xasuusinaa aan mar kasta ku xasuusinaynaa inay ku dhiman tahay 6 bil iyo 15 beri waxyaalihii aad ku soo heesaysay 3 sano iyo 4 bilood oo la soo dhaafay waxa ka haysid habeeraatay ma jiraan waad u jeedaa xisbiyadii adiga aad samaysatay oo islahayd xisbiyadan kale ku jibi ayaa maanta ka hor yimideen markay arkeen habkaad wax u wadid ceente xisbiyada oo hogaamiyo waatay ma ka hadleen ay ka sheegeen inaad adiga dana gaar ah si gaar ah wax u rabtid marka waxaa wanaagsan inaad iska daysid qardajeexa aad samaysid u wada yeertid inta siyaasadda mushtaraka kula ah si loo helo wax heshiis lagu yahay ee ummaddan dhibaatada haysato la isku dhaafiyo marka waxaan aad iyo aad uga xumahay haddana inaad garaacaysid dagaal qabiil aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed horto inaan u sheego Sheekh Shariif waa kuma waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ayaga isku hayaan ayaga jecel dhibaato inay hayso ayaga jecel in dhibaato lagu hayo maxaa yeelay Sheekh Shariif maanta mirahan aan guranayno oo ku murmayno oo ku dagaalamayno oo dastuurkii aan leenahay waxaasoo dhan ninka keen waa Sheekh Shariif Sheekh Shariif jabhadu ahaa maxkamadihii isu tagay oo mas-uulka ahaa 6 bilood wuxuu muqdisho ka qabtay waa la ogyahay madaxweyne Sheekh Shariif tuug ma aha maanta laguma hayo inuu shalay dhibaato geystay laguma hayo inuu shalay dhacay laguma hayo inuu edeb darro sameeyey ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa caqligiin inuu shaqeeyo nin aad u jeediin wuxuu ka samaysan yahay iyo wuxuu yahay aad hor u soo aragteen 4 sano iyo 6 bilood aad hadda 3 sano iyo 4 bilood oo bar oo ummadda wuxuu ku dhigay la ogyahay in Sheekh Shariif laga jirsado oo meelaha laga caayo wax laga sheego wax ma soo korinayso Sheekh Shariif waa ninkii yiri shalay wadankan oo Ethiopian joogo aniga ma imaanayo Ethiopianka waa inuu ka baxaa waad aragtay Ethiopianka wadanka waa ka saaray maanta laguma hayo hal biniyo xad laguma hayo xamar oo guri ku leeyahay laguma hayo war ummadda Soomaaliyeed waxa la rabaa caqligeeda inuu shaqeeyo xasan albaabkii qabiilku garaacoya albaabka qabiilka inuu garaacayna way caddahay asigoo ugu dan leh Sheekh Shariif xaniyaha ka bixi Sheekh Shariif xaniya cid ka bixi karta ma leh Sheekh Shariif abaal oo ummadda gashtay ayaa meel u yaallo Sheekh Shariif ciidamadaad arkaysiin boqolkii 40 mase 50 uu ku leeyahay ciidamada la soo dhisay Sheekh Shariif nin kasta oo Sheekh Shariif meeshaas oo keenay nin kasta qorigiisa iyo zuugiisa oo isaga watay ayuu dawladda ku dhisay dawladda markii la dhisayay dawladdaas wax ay haysatay ma leh ninka isku aadiyey maanta ku meel gaarka naga bixiyey dastuurka loo sameeyey wax kasta loo sameeyey waa Sheekh Shariif xasan sheekh mira bislo u yimid gurashadeedana waad aragteen xataa inuu dadka wax ka siiyo mirihii oo gurina inuu dadka wax ka siiyo ma rabiyo kaligiisa raba inuu faraq ku shubto
maamul dhisan oo maamul lagu dul dhisayo xasan sheekh lagu hayaa marka hadda wuxuu sameeyay oo kale aan rabaa inaan idin sheego cali xubey iyo generaal coronto laba sarkaal ee shabaab la soo dagaalantay ee waddankan maanta meesha uu joogo xoogooda iyo waxay ilaahay oo baray ay barteen dul dhigay xureeyay dhulka intiisa badneed maanta inuu baabuurta ay haysteen uu ka qaato wax kale ma aha waa sheekh shariif ay ku qolan yihiin labadaas nin waa midna waa korneel dagaalyaan ah midna waa generaal dagaalyaan ah inta kalena dagaalada ku laayay laakiin waxbaa ka qaldan qamaarka u dheelaa waa qamaar qaldan xasan sheekh caqligiisa wuxuu u malaynaa dadka inuu ka qalin badan yahay xasan sheekh wuxuu isku qaaday nin la yidhaahdo xasan jaamici ebel waxaa la isku ogaa baabuurta dibadda looma soo bixi karo jid ma mari karaan dhashiiki iyo wixii qoray iyo jabshe iyo wixii ka weyn suuqa ma lala mari karo ayuu lahaa hadda nin gurigiisa ayuu inuu tegay oo wax ka soo qaatay marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego xasan sheekh ciduu ka aqli badan yahay ma leh xasan sheekh nimanka oo beebeega iyo zuuyada iyo dabajeexyada oo ka soo qaatay waa saleymaan iyo xasan sheekh waa isku fiican yihiin ninka xisbiga guddoomiyaha ka waa magaciisa waxa waaye odawaawa wasiiru dowlaha oo maxaa lahaa madaxtooyada boqaari waaye ninka dadka u dhaco oo guryaha u jibiyo macallin mahdi waaye kulligood iyo kuwo kaloo badanba kulligood waxa waaye waa saleymaan ma idinla tahay nin saleymaan gurigiisa inuu tago oo hub heerkaas gaaraya inuu ka soo qaado wuxuu ku dhaqooyaa maadaama sheekh shariif nimankii ku qolada ahay oo baabuurta iyo wixii ka qaatay wuxuu ku dhaqaa in loo qaadanin loo arkin in xasan sheekh oo shariifka iyo qabiilkiisa oo kontar ku ahayn laakiin oo kulli kontar ku yahay waa arrin laga soo shaqeeyey oo laga soo shaqeeyey in lagu macallin baabaha looga dhigo dhibaatada sheekh shariif loo wado iyo qabiilka lafta uu ka dhashay dhibaatada loo wado xasan dhibaatada aada lugahaada ku dooninoysid meeshaad ka aadi doonta adigaa taqaanid hal waxna waa kuu sheegaa adduunyada meel kastood ka tagtid dacwad waa ku daba taallaa waxaa kuu wanaagsan waddankaada inaad dhex joogtid waxaa kuu wanaagsan ummaddaada inaad midaysid waxaa kuu wanaagsan in mustaqbalka fog ee ciyaalkaada iyo adiga aada fiirisid ogow meel kastoo tagto waa lagaa soo qabanaa dhibaatada aad geysatay yaa la wada ogyahay hadda dhibaatada aad soo wadid haddii lees dilo ay dadku dhammaadaan ay dadku dhintaan inkastoo dhulkii la burburinayo dad badan ay ku dhinteen waxaad ogaataa in lagu dhaafi doonin lagu soo dooni doono oo maxkamad lagu soo saari doono aniga waxaan ku dhihi lahaa nabadaada waxay ku jirtaa ummadda inaad isu keentid dadka aad midaysid maamul goboleedyada isu wacdid wixii aad suubisay meel dhigatid intii hore la yaqaanay isu keentid arrin isla ogaatiin wax isla meel isla dhigtiin nabad la helo midaas kaliya waa midda oo ku baxsan karis xasan waxaan ku leeyahay gadaal u fikir annaga wax naga daadanayo naga qubanayo ma jiro nin kastoo waddankan dhibaata ka geystay waa ka daba qaylinaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo shalay waa ka daba qaylinaynay waxaan uga daba qaylinaynay waxaan islahayn yo xoog idinku qabsan adi waaba caddaysatayba maxamed cabdullaahi farmaajo waaba nin khayladayni wax ku fahmay oo dhulka iska dhigi ushoo kor u wati adiga ha leeslaayo laakiin adaa nooga dhibaatada adaa nooga dambeynaysid wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu